الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار آمين. الحمد لله mahadoodan allah bay u sugnaatay. waa barnaamijkeenii xadiidka maanta xadiithul yawm waa xalqadii lixaad weeye aynu ku soo qaadan jirnay hal xadiid oo ka mid ah xadiidka nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah si waxa weeye ku camal falida xadiidkaasi aynu waxa weeye u dabaqno aniga idinka dhamaantiin allah waxaan weydiisanayaa inuu inoo saaro miisaanka xasanaadka allah inuu nagu anfaco. حديث كمان أنه قادم دون وحكوس وجهه في صحيح البخاري حديث كمهم دي عوان كيسيو محل شاهد كحديث كأنه قادم إنه وحويه والصبر كويه وحي إلهي وكو علفه وكو قدره نفط هذا يسمى عليه سنة إن صبرته أو قلاته وهذه أقول يسيسو. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحي حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث السند كاس يكويمي وحليه صحابي أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة نبي وحو صامر هويني سوى وضد مريا أي وحوي مال حبالة يكسو بيج من النبي صلى الله عليه وسلم لأن جواد بهالك فريسة يصامري مرك جواد حبال بيدل فريسة وهي تبكي مرك أيده أويسة ayuu nabiga soo dhinac maray calayhi salaatu wasalaam marka nabigu uu dareemay marka inay la tiiraaysan tahay qofka ehelkeedii ka geeriyooday dadna nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam isagoo doonay inuu waafajiyo sida sharciga ilaahay uu qabo oo qofka inuu qalbada ka murugoodo waa loo ogol yahay ilmo yar ay soo dhaafto laakiin inuu aad u qayliyo sharcigu uu diiday marka nabiga taa isagoo ka baraarujinay wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ittaqillaaha wasbiri gabar yahay allah ka baq واصبري صبرنا مركل الله كبقوا الله قدرتي سأقولوا الرمي طلبان وحوي كصبر وأتكيسو نفط هذه جروح وراعي سام مرك أنت هره أتكيس لا ما بوليني عليه الصلاة والسلام حديث كلي صحيح أنا وقت وتلمامي الصبر عند الصدمة الأولى صبر كوا قاعدة وهر يسوي مرك وهر يسوي باتوك قبضته مركز أي صبر كلي يجي مرك هذه نفط هذا أي كوقاتني صبركي وكو سيغوي haddii markaa naftaada xaniibtan waxay ka dhigan tahay sabirkii waad heshay weeye qofkana waxa weeye waa loo ogol yahay markuu qof ka geeriyoodo inuu u murugoodo istirjaac baa inuu la sunneeyay qofka inuu yiraahdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inuu yiraahdo inna lillahi inaga allah baa iska keen leh oo allah yaa ina abuurtay marka horeba mar hadduu ku abuurtay taladaadana isaga qacantiisa ku jirtaa wa inna ilayhi raaji'uun sida Allah uu inoo abuuray baan xaqiisan u noqon doonaa oo qof waliba dunida maalin ba laga qabanaya marka qofka istirjaaca Suleymaanaya taas ayaa inoo sunneeyay haddii dareenkiisa uu saameynayana waxa qofka loo ogol yahay ilmo yar oo aan qaylo la socon inay soo raacdo kelmadii inaasan ku soo koobaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.